madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Jubaland Maxamuud Zayd Aadan oo wada-hadal kula jira Dalada Fadaraalka ee Somalia sida ay noo sheegeen la wareediyo lagu kalsoon yahay Maxamuud Zayd Aadan oo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa Nairobi ayaa joojiyay dhaqdhaqaaqyada lagu jiro gobolkaasi Gedo kadib markii ay khilaafeen Abdirasiis Janaale wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Dalada Fadaraalka ee Somalia wararka ayaa sheegay Maxamuud Zayd Aadan in khadka telefoonka uu kula hadlay mas'uul ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya iyo kuwa gobolkaasi Gedo waxaana wararku intaas ku daray in isfahan la gaaray dhinacyada wada-hadalada waxa dhici karta inuu dhawaan u yimaado Muqdisho waxa jira isfahan qaybood oo lagu garanayo ayuu yiri sarkaar ka tirsan Dalada Fadaraalka ee Somalia wada-hadaladan ayaa wax wada ama wakiil uga ah dawladda Soomaaliya taliye ku-xigeenka Niza Abdullaahi iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolkaas Dalada Fadaraalka ee Soomaaliya ayaa dhowrkii bilood la soo dhaafay culays saartay maamulkaasi Jubaland kaasi oo ay sababtay mas'uuliyiinta qaarkood inay isdhiibaan qaarka kalena ay u cararaan wadanka Kenya Xamsada Baare Star TV